dowladda Ethiopia waxay fahamtay oo NLFna waxay fahamtay inaan dagaal wax weyn oo faa'iido cidnaba u keenayn bedel xaadlana ka dhacay gaar ahaan magaalada Jigjiga madaxweyne Mustafa Hormuud ka yahay oo NLFna waxay fahamtay in isbedelkan laga rumayn karayo inuu noqdo mid Soomaalina ay qiimo ku yeelato dadka halka ay degan yihiin gobolkana la dhiso inay rajac abuurantay ayay u egtahay taasana keentay oo NLF iyo dadaalka Mustafa iyo wixii la caanamaalahay keeneen walaal jabhadani muddo ayay dagaal ku jirtay haddana waa tan soo xarootay oo joogta gudaha magaalada Jigjiga marka ma la oran karaa ONLF waxa ay gaartay hadafkii ay hiigsanaysay waxa weeyaan hadafku muddo dheer buu qaataa ama 30 sanadood ha noqoto oo Eritrea intaan leeg bay dagaalamayso waagii Ethiopia ay ku hoos jirtay marka waxaan islaahay hadafka tallaabadiisii ugu horeysay ayaa la gaaray oo ah in iyadoo la siman yahay oo nabad lagu nool yahay la wada hadlo lagana tashado ayaha wadanka ay joogaan hadeerso marka waxa weeyaan calaamad wanaagsan weeyaan iyaguna marka waxa la quman lana gudboon inay keenaan dadaal cusub oo ah in hubkii meel la iska dhigo gobolkii la dhiso dawladii heshiis lala galo laakiin sidee Soomaaliya oo dhan ma misalan waa jabhad waaye marka dadka Soomaaliyeed degan gobolkuna wuu fara badan yahay marka danta dadka Soomaalida gobolka degan in la bilaabo aataarkeedii dambe in laga tashado iyo sidii wadanka iyo gobolka si wanaagsan loogu dhisi lahaa dadaal iyagu ay keeneen iyo dadaal dawladda Jigjiga joogtay taajisay joogtay keeneen ayaad moodaysaa marka hadafka tallaabadiisii ugu horeysay ee lagu gaari lahaa in iyadoo xor la wada shaqaysto ayaa bilaabmaan islaahay maanta walaal sidaad ba ka dhawaajisay waxyaabaha ay u dagaalamayeen waxay ahayd in bulshada degan dhulkaasi Soomaalida ay madax banaani helaan oo ay xor noqdaan sida ay sheegayeen marka arrintaasi iminka ma ku muuqata oo suurtagal ma tahay hadday madax banaani tahay dawlad halka Ethiopia intay ka go'do calan gooni ay yeelanaysa taas u malayn maayo inay tahay ka ku jirta wada hadalka waxa weeye gobonnimada Soomaalida laga hadlayo waa laba nooc bay ahaayeen mid waxay waagii hore waxa weeyaan dadka Soomaalida Ethiopia degan waxa loola dhaqmi jiray dawladda Ethiopia oo la dhaqmi jiray sidii adoon aan wadaniin ahayn tii waa laga soo gudbay maanta oo gobol dhan baa magaceena lagu sheegaa waxa weeyaan waa taa maanta Mustafa madaxweyne sidoo uu hadlayo oo dadka soo dhaweynaya hadalkaasi marka waxa weeyaan in la sinaado oo aayaha laga wada tashado wixii ay ku dambeynaysan Ilaahay baa ugu Professor dad ayaa waxa ay qabaan aragti ah inay suurtagal tahay in heshiiskan uusan miradhal noqon doonin oo lagu khiyaanayo jabhadani sidii waagii Zanaawi xukunka qabtay ee ay u soo dhaweeyeen markii dambana xaaladdu ay sidii noqon weyday walaal waxa weeye maanta dadka Oromada ayaa horta isbedelkan keenay Ethiopia gudihiisa haddana Oromadu kicin ra'iisul wasaaraha Axmed iyo wixii la caanamaala waxba may keeni kareen waxa cadaatay dawladda Ethiopia in wadanka sidii hayna u hayn kari jirin sidii awlahay tooga u haysay marka albaabka furmaya waxa weeye dad Oromo ah oo iyagana sida Soomaalida loola dhaqmi jiray oo loo ogolaan xataa markii Hayle Selassie markii dargigu joogay inay afkooda ku hadlaan ay Oromaanu nahay halon adigu ma Ethiopian ba Oromo ma tiid laakiin axmar baan ahay oran jiray marka waxa weeyaan isbedelka caynkaas ayaa yimid waa sinaan baa imanaysa marka haddii hay ONLF iyo dadka kale Soomaalida ee gobolka degani hay ra'yi la yimaadaan iyagu hay ku midaysan yihiin oo qabyaaladaysnayn Mustafana wuxuu ka dhawaajinayo oo ku dhaqaaqo oo sida dadka ku qaashado waxaan islaahay khiyaamadii hore raqiiska ahayd ma soo noqon karto waa mid ka weyn la keenaa taasina ma arkayo si hay dawladda Ethiopia hadda u keeni karto waayo iyada qudheeda ayaa u doodi jirtay inay Oromadu xoroobaan oo la sinmaan dadka kale wadanka ay wadaray marka hadda iyagu soo jeedaan jabhadda qura ma hadlayo Soomaalidaas oo dhan ay soo jeedo oo Soomaalidu isku duubanto ayna sidoodii hore tafaraaruq u iman waxaan islaahay waa suuragal inta Ilaahay la cuskado in laga marin karo walaatan oo ka duunaato tii 19 ugu dambeyntii waxyaabaha aad leedahay waa ay ka faa'iideysan karaan jabhadani oo nabadii iyo in wadankii si xor ay u joogaan maxaa kamid ah walaal waxa weeye jabhaddu waa dad Soomaaliyeed waaye magacu sidoo doonaya ha noqday marka haddii aayaha Soomaalida ee gobolka degan oo si wanaagsan loo mideeyay oo tacliintii oo khayraadka gobolka leeyahay Soomaalidu qayb buu xaasay ka helaso oo caafimaadkii la dhisayo oo shaqooyinkii la abuurayo oo dadka Ethioopiyaanka kala ay la tartami karaan waxaan islaahay waxa weeyaan waa wixii Soomaali rabtay weeye haddii Ethiopia kala dhacana Soomaali markaa inay tashato weeye